رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo booqasho shaqo ku jooga magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan xasaasi ah halkaasi kula yeeshay danjirayaasha iyo hay'adaha caalamiga ah fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Kulanka oo looga arrinsaday sidii wax looga qaban lahaa mushkiladaha kala duwan ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa warbixin ku aadan baahiyaha taagan xilligan looga dhageystay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdikariin Xasan Maxamed Laftagareen ayaa madasha ka jeediyay in baahi weyn loo qabo dardargelinta horumar dhinac walba ah oo ka hirgala deegaanada maamulka oo dhan. safaaradaha iyo hay'adaha ka qaybgalay kulanka ayaa iyaguna sheegay in ay doorka uga aadan ka qaadanayaan horumarinta iyo dibudhiska guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hadal kooban ka jeediyay gabagabadii kulanka ayaa sheegay in dawladaha saaxiibada la ah Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ahba laga doonayo in ay si firfircoon uga qayb qaataan xal u helidda dhibaatooyinka muddada dheer ka taagnaa Soomaaliya. Wuxuu kaloo sheegay in siyaasadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ay xoog saarayso xaqiijinta nabadgelyada, hirgelinta maamul wanaagsan oo ka dhaqan gala dalka oo dhan iyo horumarinta adeegyada kala duwan ee bulshada. Khayre ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay si dhow ula shaqaynayso maamulka Koonfur Galbeed ayna ku qanacsan tahay qorshaheeda dhinaca horumarinta ay soo bandhigtay. Waxa uuna u mahadceliyay danjirayaasha iyo wakiilada ka qayb galay kulankaasi. dhinaca kale raiisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo goob fagaare ah kula hadlayay kumanaan shacbiga magaalada Baydhabo oo ka tirsan ayaa ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay Baydhabo iyo deegaano kale oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ka hirgelinayso mashaariic horumarineed oo kala duwan. Raiisul wasaaraha ayaa toos u ballan qaaday dhismaha gegada kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo iyo horumarinta arrimaha amniga, caafimaadka, waxbarashada iyo adeegyada kale ee la midka ah. ballanqaadka raiisul wasaaraha ayaa waxaa soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulkaasi. dhinaca kale raiisul wasaaraha ayaa waxa uu gudoomiyay shirka golaha wasiirada Koonfur Galbeed. shirkaasi waxaa looga arrinsaday sidii dhidibada loogu taagi lahaa tuwa horumarineed oo ka turjumaya baahiyaha taagan Koonfur Galbeed Soomaaliya ee xilligan. ugu dambeynna raiisul wasaare Khayre ayaa kormeer ku tagay xarumaha qaar ka tirsan wasaaradaha maamulka waxaana warbixin oo kaga dhageystay wasiiro iyo hawlwadeennada wasaaradahaasi qaarkood. mudane Khayre ayaa intii uu kormeerkaasi u kuurgalayay sida ay howlaha u socdaan waxa uu ku bogaadiyay hawlwadeennada iyo wasiirada maamulkaasi duruufaha adag ee ay ku shaqaynayaan. waxa uuna ku booriyay in ay labalaabaan dadaalkooda. xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Harare ee xarunta dalka Zimbabwe. xulka ayaa ka ambabaxay magaalada Djibouti oo ciyaar ku dhex martay xulka Zimbabwe ay uga adkaadeen. kulanka labada xul oo kamid aha tartanka isreebreebka caalamiga ah ee kubadda cagta ee adduunka ee la qaban doono sanadka 2022 ahana lugtii koowaad ayaa waxaa ku adkaaday xulka qaranka Soomaaliya oo hal iyo eber ugu awood sheegtay xulka Zimbabwe. labada xul oo Soomaaliya iyo Zimbabwe ayaa magaalada Harare ku ciyaari doona lugta labaad ee kulankooda isreebreebka heerka koowaad. ciyaartooyda kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa sanadkan soo bandhigay ciyaar wanaaga soo jiidatay indhaha caalamka. guushii ay soo hooyeenna waxa ay farxad gelisay gabi ahaanba Soomaalida. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo mas'uuliyiin kale ayaa hambalyeeyay xulka waxaana ku booriyeen in ay labalaabaan dadaalkooda.